waxaa weli shaki xoogan la gelinayaa mustaqbalka xiddiga reer Brazil Neymar Jr ee kooxda PSG iyadoo la hadalhayo inuu mar kale dib ugu laaban doono dalka Spain. Waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya ciyaaryahanka iyo maamulka kooxda, kuwaasoo albaabada u furay 27 sano jirkan haddii uu doonayo inuu ka bixi karo ama uusan raacin siyaasadda maamulka kooxda. Sida laga soo xigtay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain, Neymar Jr ayaa fariin toos ah u diray madaxweynaha PSG si uu ugu dhiirigeliyo inay iska iibiyaan isla markaana u ogolaado inay mar kale dib ugu laabto Barcelona suuqa xagaagan. Wargeyska Mundo Deportivo ayaa daaha ka qaaday in fariinta uu Neymar Jr u diray madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Khalifi taasoo u dhignay sida tan: "Ma doonayo inaan halkan ka sii ciyaaro, waxaan doonayaa inaan ku laabto gurigeygii, kaas oo aan habboonayn in aan ka soo tago." Sida laga soo xigtay jasiiradda, Thomas Tuchel ayaa ka daalay dhibaatooyinka Neymar Jr uu sameynayo qolka labiska kooxda PSG, sidaa darteed wax dood ah kama qabi doono haddii aan dhacdo inaan